xasaasiyadda waa cudur dadkeena faraba aan ku haya mar walbana siyaabo kala duwan uga cawdaan waxaa jira habab badan oo lagu daaweyn kara xasaasiyadda sidaas darteed waxaan fiidiyogan ku soo koobaynaa sida ugu wanaagsan uguna fiican oo loo daaweyn karo xasaasiyadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنالك دكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجودية ناف مرينكا أما عذرات قطع فئرة هدي أد جنالك كعصوك فضلا سبسكرايب ده سيادنا على سعة مروال بفضلا ريح جنب الالك ما أنتو حكاهد لدونا سيدي لو داوية حساسية ده sida ugu wanaagsan ee xasaasiyadda lagu daaweeyo waa in laga fogaado waxyaabaha ugu badan ee keena xasaasiyadda si aad uga bogatid waxyaabaha keena xasaasiyadda fadlan daawo fiidiyoga hore aan uga soo hadlay xasaasiyadda dhibaatada ee leedahay xaqiiqada waxay tahay in badan mar walba waxyaabaha xasaasiyadda kugu kicinaya inaadan iska ilaali karin boqolkiiba boqol sidaas darteed waxaa jira habab badan oo loo daaweeyo xasaasiyadda laakiin waxaan ku soo koobaynaa laba nooc oo ah daaweynta dabiiciga ah iyo tan dhakhtarka daaweynta koowaad daaweynta dabiiciga ah qodobka koowaad inuu qofka meelaha uu u badan yahay sida gurigiisa iyo goobta shaqada uu ku xiro shabaqyo ka celinaya cayayaanka iyo busta sidoo kalena ka yareynaya xasaasiyadda qodobka labaad isticmaalka geedka la yiraahdo butterbarka waxaa la arkay cilmi baaris la sameeyay 2003 in uu aad ugu fiican yahay geedka butterbarka xasaasiyadda qodobka saddexaad isticmaalka cuntooyinka laga hela dheecaanka la yiraahdo bromelain sida babayga iyo cananaaska cuntooyinka leh maadadan bromelainka waxay yareeyaan bararka ee xasaasiyadda ku keenaysa jirka qodobka afaraad isticmaalka cuntooyinka leh probioticska sida cuntooyinka qamiirsan oo leh bakteeriyada u wanaagsan dheefshiidka iyo jirka intiisa kale sida yogurtka biikaliska iyo liima ajaarka qodobka shanaad isticmaalka malabka ilaa iyo hadda lama haya caddeyn sax ah qaabka uu u yareeyo xasaasiyadda malabka balse waxaa la arkay dadka isticmaala in xasaasiyaddooda ay yartahay qodobka lixaad isticmaalka hawo nadiifiyaha wuxuu yareynayaa in waxyaabaha xasaasiyadda kiciya ee hawada soo raaca uu si fudud ku saaro qodobka toddobaad isticmaalka vitamin C-ga maalin walba wuxuu yareeyaa xasaasiyadda sababtoo ah vitamin C-ga wuxuu hoos u dhigaa maado la yiraahdo histaminiska qofkana xasaasiyaddiisa aad ay u soo roonaanaysaa markaas uu ka fiicnaanaya xasaasiyadda qodobka sideedaad isticmaalka saliidda miintada cilmi baaris la sameeyay 1998 waxaa lagu sheegay in saliidda miintada ay yareyso caabuqa guud ahaan gaar ahaan caabuqa sanboorka iyo xasaasiyadda ay keento daawada sideedaad sandaraarsiga ama nasal irrigationka oo ah sanka biyo in lagu dhaqo biyaha ugu fiican in lagu dhaqo sanka waa faleebada cusbada ah maadaama aan la hubin nadaafadda biyaha kale intaas waa habka dabiiciga ah ee lagu daaweyn karo xasaasiyadda habka labaad ee daaweynta waa inaad dhakhtarkaaga aadaa dhakhtarka marka xasaasiyadda ay ku hayso aad u baahan tahay inaad aaddo takhasuskiisa waa inuu ahaadaa dhakhtar ku takhasusay xasaasiyadda iyo difaaca jirka haddii la waayo dhakhtar xasaasiyadda ku takhasusay sidee isku daaweynaysaa dhakhtarkeena aadaysaa marka haddii aad weyso dhakhtar ku takhasusay xasaasiyadda waxaad aadi kartaa dhakhtar ku takhasusay xubinta markaas xasaasiyadda ay kaa hayso sida haddii aad qabtid xasaasiyad cunaha ah waa inaad u tagtaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka haddii aad ka qabta xasaasiyad dhanka dheefshiidka oo aad isku aragto mar walba calaamado soo laalaabtay ee dhanka dheefshiidka ah waxaa u tegaysaa markaas dhakhtar ku takhasusay dheefshiidka sidoo kale haddii aad xasaasiyadda ka dareemaysid dhanka maqaarka waa inaad u tagtaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada maqaarka haddii aad xasaasiyadda ka dareemaysid neefmareenka ayadana waa inaad u tagtaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada neefmareenka waxyaabaha marka adiga lagaa rabo shakhsiyan inaad ka fogaatid maxay tahay si xasaasiyadda dhibaatadeeda ee aad kaaga yaraato waxaa ugu horreeya inaad iska dhaafto iska ilaaliso iska joojiso cabista sigaarka iyo shiishadda labo inaad qaaca warshadaha iska ilaalisid haddii aad joogto waddamada horumarsan qodobka saddexaad haddii aad joogtid meel hawadeeda wasakhaysan tahay inaad isticmaashid maask ama afdabool inaad isticmaashid ama afka inaad xiratid iyo sanka sidoo kale cimilada qabow inaad isku daydid mar walbo in aad gashatid dhar xooggan marka uu jiro huurka faraha badanna inaad isku daydid markaas inaad raadisid meel cimiladeeda ay caadi tahay oo huur badan aan lahayn meelaha ugu badan oo huurka qofka uu la kulmayo waxaa waaye meelaha xiran
maqaasiinada iyo meelaha hoose oo godadka ah. marka waxaa wanaagsan inuu qofka markaas haddii ay shaqadiisa tahay inuu u sheegay inuu xasaasiyad qabo loona bedelo meel uu markaas uusan ku dareemeyn qofkii cariiri iyo huur. qodobka saddexaad waxaa kaloo la rabaa qofkii inuu iska ilaaliyo dabaysha faraha badan, sidoo kale waxyaabaha la buufiyo sida barfuumka iyo waxyaabahan timaha lagu buufiyo kale inuu qofka iska ilaaliyo in sankiisa ama afkiisa in ay markaas ay aado, sababtoo waxaa laga yaabaa inuu markaas asna allergy uu ka qaado qofkii. sidoo kale wax walbeeto oo qaac keeni karo hadday ahaan lahayd dhuxul ama qoryo la shito inuu qofka ka fogaado. waxaa kaloo jira dad badan oo isticmaala daawooyin aan dhakhaatiir u soo qorin. dhibaatooyin badan ee leedahay uu qofka fahmi karin markaas daawooyinka isticmaalayo. waxaa laga yaabaa inaa xasaasiyad ku qabtid. waxaa kaloo laga yaabaa in dhibaatooyin badan oo caafimaad ay kuu geysan karaan. sidaas darteed daawo aan dhakhtar kuu soo qorin ha isticmaalin. waxaa la mid ah gabdhaha isticmaala daawooyinka laisku caddeeyo. daawooyinka laisku caddeeyo waxay dhibaato weyn u keenayaan jirkaaga, maqaarkaaga iyo caafimaadkaaga guud ahaan. marka isku day kareemka aa isticmaalaysid xitaa inuu ahaado kareem license sax ama warshad saxa ama baraan saxa ka imaada. ugu dambayn, isticmaalka cuntooyinka qaar aad og tahay inay ku dhibayaan ayagana inaad iska ilaalisid, ama cuntooyinka qaar aad og tahay inaad xasaasiyadda ka qaadaysid. intaas haddii aad fulisid way fududaanaysaa markaas inaad daawaysid xasaasiyadda. calaamadahan haddii aad isku aragtid waa inaad horay isbitaal kala xiriirtaa. calaamadaha waxaa waaye calaamado ay sababi karaan xasaasiyadda dhibka badan, waxaana ugu horeeya neefqabad ama neefta qofka inay ku dhegto, xabadka inuu ciriiri ka dareemo qofka, sidoo kale inuu qofka wareer dareemo ama inuu aad u matago, sidoo kale in barar zaa'ida uu qofka arko hadday ahaan lahayd maqaarka, indhaha iyo jirka intiisa kale. ayadana waa inuu isbitaal si degdega ula xiriiraa. inkastoo daawooyinka dabiiciga ee xasaasiyadda ay wax weyn u tarayaan lana arkay waxqabadkooda, waxaa in badan lagama maarmaan ah qofka haddii uu qabo xasaasiyad in uu mar walba la xiriiro dhakhtarkiisa, sidoo kalena dhakhtarkiisa uu dhegaysto talooyinka uu siinayo mar walbo si toosana uu u fuliyo, sababtoo ah dhakhtarka wuxuu kuu doorayaa mar walba talada tan ugu saxsan haddii uu yahay dhakhtar sax ah. intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabato waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana uu heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonnaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir kommentiga, sidoo kale noogu soo dir kommentiga mawduucii aad doonaysay in laga soo hadlo. si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. waa inoo mar kale iyo fiidiyo kale insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.